السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا waxaa kusoo dhaatin barnaamijkeeni oo ku magac dheeraa 1.5 muddo niga maqnaay hadda waan soo noqonay waxaan igu soo dhaweynaa gacmo furan inta aan maqneen waxyaalo badan dhaceen waxyaalo badan isbedeleen adduunka inta dhimatayna Ilaahay u naxariisto الفاتحة maanta waxaan rabay inaan igu soo dhaweeyo sheeko yar oo khafiif ah oo ku saabsan wadankeena Soomaaliya. China darbi leeyihiin darbigaasna waxa la darbiga China waana caan dad kasta waa yaqaanin oo malay adduunka joogo waana mucjizaanta adduunka oo toddobaad ay ka mid tahay. laakiin darbigan Chinese waxay u dhiseen inay iskaga difaacaan dadka soo weeraraya laana China markasta wadankooda waa weerar jiray wadamo badan soo guumeysteen oo Jabaanka ka mid ah. darbiga markay dhiseen waxay noqotay inay ma aragtay iika iska ilaaliyaan weerarka la soo weeraray cadowga oo banaanka ka imaada oo guumeysigoodii dhibaatadoodii ku soo bilaa. maxay sameeyeen darbigay dhiseen darbiga waa weynaaday caano noqday waa la yaqaana boqolkii sano koowaad oo darbigaas oo dhisnaa waxaa soo weerartay China 3 mar la qabsaday boqolkii sano koowaad oo darbigaas dhisnaa. maxaa dhacay cadowga ma buu u baahneen inuu oo maaragtay darbiga korkiisa oo ka boodo oo gala wuxuu kaliya oo suubiyay dadkii oo waardiyaasha ilbaabaha darbiga joogan oo lacag siin jiray cadowga waa soo galay wadankan waa la qabsanay. maxaa dhacay cadowga wuxuu markaas u qabsanaa meesha Chinese-ka darbiga dhiseen laakiin waxay ilooween inay dhisaan bini'aadinka ama waardiyii ilbaabka qabanay inay dhisaan ay ilooween. taasna waxay ku cadeynaysaa marka darbiga oo la dhisay oo adka dhan maaragtay inay oo iika ay ku qasaareen laana waxay ilooween bini'aadinka Chinese-ka dadka Chinese-ka inay dhisaan. soo saas ahaan 3 jeer la qabsaday darbigaas markii la dhisay boqolkii sano koowaad. marka muhiimadeedu waxa waaye in aan fahanno bini'aadinka hadaan dhisi karin maaragtay darbiga inuu wax noo tarin. soo saas ahaan aan sheekadan tusaale yar aan ku soo qaatay wadankeeni wax ka dhacay dhibaatada wadankeena taala markastana inaan hore soo kacno markaan rabno waxaan arkaynaa inuu oo dib nool keenay. hadeertan Soomaaliya waxa dhibaato ka jirta dadkii waardiin lahay wadanka hadii dadkii waardiin lahayn maaragtay dibka ka jiraan marka muwaadiniinta wax ma qaban karaan. see uga hadalnaa annagii baaba musuqmaasuq aabihiis iyo hooyadiisa see looga hadlaa guddoonku waa musuqmaasuq xildhibaanadu waa musuqmaasuq xilkoodii cid godanaysa male waxaynu nahay ma naqaan. waa taasna waxa waaye problemka wadankeena haysta marka dhaxdeeni saani sheeg dhaxdeena ku jira musuqmaasuqaasna waxa waaye musuqmaasuq maxaa ku dhacnigan musuqmaasuq oo international waa yani waxa jiraan dawlado oo xuduud ku leh ay rabin inay dawlad ku dhisanta waxa ku jooga wadanka dad tujaar oo maaragtay daawooyin waxyaalo badan kala duwan keenayaan wadanka maran ka hadli doona oo rabin wadankaas inuu canshuur iyo waxyaalaha oo systemka adduunweynaha lagu ogyahay dawlad markay tahay meesha joogta waxyaalahaas dhan ay ka boodaan ee jeebab kale u bixiyaan dadka musuqmaasuqa waxaa jiraan international community dad adduunweynaha quramada madow okay that's what I call them quramada madow waa jirta quramada madow waxay rabaan badaan iyo xuduudkan maaragtay inay bilaash ku socoto. waxaa jirta atom bomb geedkan bombkan atomka qashinkiisa la soo qaadaa waxa lagu daadiyaa badda Soomaaliya qof kastana waa ogyahay malay arintaas. so waxyaalo badan ay jiraan oo musuqmaasuqa la ka duwan laakiin anaga keeni ko weyn waa si madaxweynayaasha ay u badin markan Soomaaliya ee asagana ay u badin yihiin musuqmaasuqin. so that's why walaal waxa ogaanaysiin inuu markasta Soomaaliya inay kor u kacdo loo diiday intay dhimatay Ilaahay u naxariisto 14 iyo 15 October wixii qarax ka dhacay iyo tan oo shaleeto dhacday 28 bishii May 9 Ilaahay u naxariisto Ilaahayna jannada ka waraabi Ilaahayna shuhadaha ka aqbalo باذن الله تعالى. mid kale waxa waaye marka musuqmaasuqa oo waxa jira nooc kale noocan waxa waaye nooca maskaxda bini'aadinka dhaqa because waxa waaye media waxa la dhahay jirto mediadan si hadda ay arkusan tan camalno mafahantay ay jidino so media jirto oo la dhahayo YouTube
bla 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 tv twitter tatata kulligood media waay dad waxaa jira oo musuq maasuq oo ka shaqaystaan dhaqan bedelid ama iyaga waxay ka tahay waani marmarna waxay ka tahay shacabkiina dad u sheegay si aan camal hadda wax si marmarka qaarkood waxay aan soo maqlayn issue yani wax kale ma haysto bas waxaa jira dad oo waxaa jira media fadhiyaan waxay shahaado leeyihiin ma naqaano wax meesha iyaga ka socdaan ma la fahmaayo waxay leeyihiin ilaa 340,000 ani ma ka wadayaa ina fiirsatiin 40,000 no ma ka wadaas ani qofka fiirsanahay fiirsada qofka kalena iska dhaafo laakiin waxaan ka hadlaa 30,000 qofood markay u soo fadhiisanayaan qof oo saan u hadlaya kan hadeertaan maxaa way mujtamaca muxuu usoo kordhinaa nin waxaa waaye daqiiqa wuxuu ku hadlayaa nabiga iyo ilaahay magaciisa ku sheegaya afkiisa ku sheegaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم daqiiqada labaadna waa caytamaya waa ujeedinsa waa caytamaya maxay rabtaa والله سواح كلا ربين يعني كان waxaa waaye musuq maasuqa professor musuq maasuqa laha waxaa waaye generationka kan asaga wuxuu ka daran yahay kan dawladda u shaqeynaya lacagta ka qaadanaya kan waxaa waaye wuxuu faafinaya yani diinna ma dhihi kari ma aqaani dhaqan oo ummadda يعني حشمده يعني لم تستحي ففعل ما شئت يعني قفك بني ادم خدوه حشوم واي وحو ربا كوكا سو اسغ maxaa ku tilmaamaysaa madiinu faafinaya madhabu faafin dhaqan xumid mu faafinaya I don't know waa nin weyn waa dadna wuxuu yani dada waxa u fiirsanaya waxay sugaan waa bal sugaaba so 30,000 hada 30,000 ku dar 30,000 ku sii dar meeqay noqonayaan 90,000 waa generationka gabdhaha wiilasha soo korayaan waxaas ay fiirsanayaan because media ma control kartid waxana ma ku soo kordhay laakiin waxa la yaabanahay dadka oo hatta heer waxay gaareen idaacad inay ka casuumaan idaacad dhageystayaal waa barnaamijkayagii aan ku soo qaadan jirnay warka iyo waraysyada barnaamijkayga caawana waxaa noogu martiya cabdiraxmaan isagoo sheekh ahna nin dhalinyaro oo caan ka dhinaca social media ujeedadu waxa way marka raadiyaha ama dadkan Mareykanka degan dad oo waxaan u maleynayaa dad badan oo wax barto way dadkan oo raadiyaha naftirkiisa hogaaminaya macquul ma inay qofka heer inay casuumaan qof noocan wax oo generation usoo kordhinayn maxaa way faa'iidada intii asaga raadi la soo fadhiisiyo oo bini aadanka kan oo baawrkiisa wata shaqadiisa u socda ninkaas inuu dhageysta markuu Facebook saan u furo ninkaas arka iyo fulxumadiisa so that's the waxa way wixii generation dhan ma arkno ku saabsanaay oo masuq maasuq lahaay kan wuxuu ahaay qaybta ragga ninkii loo soo diray waaye si faxsharka iyo dhaqan xumada soo u faafiyo kan waa ragga qaybtiisa marka dumarka ku soo hiray dumarka waxa loo soo diray qoftan amal waa idin sheegay hadda koor kamsar caleenta soo gata qolka idinka bixinaysaa hadda qoftan marka waxa waaye waxa daawanaya jiil dhan intaasoo waxay leedahay kumanta intaasoo waxay leedahay barbaba dad badan fiirsanayaan hadaladeedii mar waa toosin yihiin mar waa qaloocan yihiin si sheekay hore amal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم soo iidna sheekad waa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد qoftaan soo noqonaysa Soomaaliya iimaanaysa waxay ku leedahay aniga waxaan ahay xildhibaan barlamaanka ku soo fadhiisanay yaa u sheegaysa marka so waxaan dhihi lahaa mataqaana ilaahay ma aragtay hana hanuuniyo ilaahay garabkiina hagala laakiin waxaan u maleynaa sheekadan iyo sheekan mujida way iska saayana u maleeyaa waa kulankii مليون iyo مسكينك الله عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي يا مخايد السفاري way ismarti qaadaan way isla fadhiistaan waxay cunaan waxay soo barnaamijkoodii hadda telefoonada kala qaateen akiid address waa kala barteen waxaan dhan way is ogaayeen iyo bis laakiin hadda dadkan ka dhaadhicinayna amal noo sheekada soo hadda istaqaani markano ii qalaya aniga waxa cidda ahay okay ha isoo weerarna waan ii tuuga marka waa aragtayna u maleynaa dad is yaqaano waaye way isla fadhiistaan barnaamijkooda ajandooyin leeyihiin mail loo soo diraa waxay ka hadlayaan waxay suubinayaan maalin kasta dad shaqaysanaya waa shaqay ku jiraan marka miskiinka mujida oo sidoo camal suubinaya oo niidiisi ama hadalkooda waqti u sameeynaya inuu fadhiisto oo dhageysto ilaahay garabkiisa gala
mar labaad waxaan rabay inaan dhahaa ilaahay u naxariista dadkii dhintay ilaahay garabkooda ha gala intii dagaaltamo Soomaali daraadeed waxaan dhihi rabay wax badan aan iga maqneen laakiin hadda ka bacdi waan bilaawayna because adduunku waxyaalo badan ka dhaceen soo anakana ma aragtay doonteena dhinac u socotay marka nagara lahada waxaan kale aan dhihi rabay waani yar aan wiil walaalkiina aan ka helnay soo ina ilageysteen waa inuu kulan dambe insha Allah bye magacaygu waa Abubakar Abdullaahi Maxamed Abubakar Ducaysane maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuca cuqdada ku beerin carruurta naafada ah ilmaha naafada xubnaha jirkiisa ama maskaxdiisu dhimanta bulshada gaar ahaan carruuraha kale waxa uu kala kulmaa afxumo iyo sid iyo wax ka sheeg joogto ah waxa in badan maqashay cuuriyaan dhagool jiis afqalo gacmi iyo wixii la mid ah carruurta naafada bulshada waxay ku haysaa dhibaato joogto ah oo nafsadood iyo koriinkooda maskaxda wax yeeleeya waxay dhibaatadaas kala kulmaan waalidka walaalaha guud ahaan bulshada carruurta lixaadkan waxay u baahan yihiin daryeel dhinac walba ah waa in loola dhaqmo si lamida sida carruurta kale waa inaan loogu weedhin inaanayse ku khatamo lixaadkooda dhiman sida jiis iyo ilay wixii la mid ah taasi waxay keenaysaa inuu ilmaha socdad qaado uu dareemo inuu ka liito dad kale waa in la kobciyaa oo la siiyaa waxbarasho ku habboon awooddiisa iyo garashadiisa waa in lagu barbaariyaa inuu wax qabsan karo ha ku beerin carruurta naafada ah cuqdad